dadka Soomaaliya waxa rabaa inaan u sheego deyntan la leeyahay Soomaaliya laga cafinaya dadka Soomaaliyeed deyn baa leedinka cafaha la yiraahdaa leesbu weydiyo horta deyntan yaa qaatay haddii la qaadaysa intay ka baxday si loo isticmaalo deyntan markii la qaadayay oo hadda la leeyahay Soomaaliya laga cafinaa markii deynta la soo qaaday waxay ku baxdaa musuqmaasuq qof Soomaaliya oo dhihi kara ma jiro lacagta la iska rabo oo 5 bilyan oo Soomaaliya hadda laga rabo oo deynta ah markii laga reebo faa'iidada iyo dulsaarka lacagta asalka ahayd 100 kun oo dollar oo Soomaaliya ay deyn ku soo qaadatay xafiiskan ayaa dadka iyo dalka Soomaaliya loogu dhisay qof dhihi kara ma jiro oo maxaa dhac marka lacaga deyn lagu soo qaatay markii deyn lagu soo qaato gudaha dalka Soomaaliya ay soo gashay ayaa la musuqmaasuqay oo la kala qaatay oo guryahan waaweyn oo number 4 ku yaala iyo airportka agtiisa ilaa iyo booli qaran xataa meeshii loo bixiyay ayaa lagu dhistay deyn kale oo hadda inta taas nagala cafiyo mid kale la qaatane haddana wili sidii rabaan inay haddana u dhacaan oo haddana ay mar kale booli qaran ku dhisaan marka dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa in la ogaado war deynta aan qaadano horta yaa qaatay waxa qaadatay lacagti tuuga qaadatay haddana haddii aqligan oo sidii yahay oo aan dawladnimada waxba ka bedelin lacagta kale oo aan qaadan doono haddii deynta nagala cafiyo deynta kale oo qaadan doono haddana tuuga kala qaadan doonto isla tuugada la qaadan doonto wax isbedel ma jiraan isla tuugada waxay ku yihiin waa isla aqliyadii waa isla kuwii hore lacagta xada ilmahoodii haddana siday u xadaayaan dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa in la ogaado oo la isweydiiyo war lacagtii hore ee deynta lagu qaatay aaway waxaan ku sheegayaa bangiga ganacsiga iyo kaydka Soomaaliyeed oo lacagta laga qaatay si ku talagal ayaa loo gubay dukumiintigii lacagtaas lagu qaatay oo guryahan xamar ku yaalo waaweynka badan leh oo Digfer iyo Istal Balaadir iyo jaamacadda ummadda iyo Buulixuba iyo airportka kurkiisa iyo booli qaran guryaha ku yaala ilaa warshada caanaha ilaa wasaaradda gaashaandhigga warshada bataqana sigaarka iyo taraqa ilaa baarobax ilaa xamar jadiid ilaa isbartiibada guryahaas ilaa mataqaana soos iyo guryaha ku ag yaala guryahaas lagu dhistay. It's good you're talking about accountability, but let's now specifically talk about corruption, like you mentioned earlier. It's one of the things you really want to fight now. The corruption index, you know, ranks Somalia high there, up there as one of the most corrupt African nations. But we've seen countries like Rwanda and South Africa take drastic, you know, measures towards corruption in their countries. South Africa says if they catch you, you know, in any of these, they arrest you on spot. Rwanda has a zero tolerance when it comes to corruption. Is Somalia taking any drastic measures when it comes to corruption? And how are you building confidence with, you know, these development partners to say that, you know, this is what we will do when it comes to this? markaas inuu gaajada ka baxo iyo maxaan ku raahdaa dalkiisa inuu xumaado oo uu noqdo dalka ugu xun ugu musuqmaasuq badan iyo aakhirada inay u dambayso oo uusan janno gelin inta badan waxa la yiraahdaa dadka musuqmaasuqa u faradu dhuuban ama u badan waa dadka dawladda u shaqeeya xaqiiqo ma aha waxa ku jira ganacsatada oo haddii ay ahayd inay canshuur bixiyaan canshuurtooda qariya oo aan sheegin wixii waxba lagu ballamay waxa lagu ballamay intaasoo percent inaad bixiso hadduu kala qariyo waa musuqmaasuq markuu kala qaranayana musuqmaasuqu dawladdu ku daraya culays kala saaraya maxaa yeelay ninkii qaadayay yaa laga yaabaa inuu laaluusho marka wuxuu ka yahay qayb ugu muhiimsan uu ka yahay qofka ganacsatada ah haddaan dhaqaale la helin amni ma imaan karo waxay taabanaysaa waxbarashadii waxay taabanaysaa biyihii la cabaayay waxay taabanaysaa horumarkii kale waxay taabanaysaa caafimaadkii wax walbay taabanaysaa marka meesha ay wax ka bilaabanayaan waa qofka canshuur bixiyaha ah maamul wanaag inuu dhacay sanadkaasna wuxuu ku abuuraa niyadjab inay ku aamini waayaan haddama hantidhowrka riboorkiisa oo saas sheegayo iyo sida kaas wuxuu ahay xisaab xirka 2018 oon hadda ku jirno siduu dhaqan doonaa marka ma kasii daraa doonaa riboortka soo bixi doona muxuu dhaqanaa kaas hay-ada dham oo hantidhowr ku aadeynaa inaynan warbixin siin marka culays badan oo ku keeni doonaa maamulka hadda jiro iyagaa laga yaaba marka inay saxaan oo ay dib ula xisaabtamaan hantidhowrka wuxuu ahayd
madax banaan waa inuu ku caddeeyo khaladka dhacay haddii khalad dhacay oo caddeeyna dawladdaa laga rabaa marka in iyaduna saxdo waa gartay marka saamaynta baaritaankan ku yeelan karo hay-adaha dawladda intee bay gaarsiisan tahay aaday u weyn tahay marka lama aamini karo hay-adihii dawladda ee maaliyadda oo lacagihii loo soo shubay heshiisya waxaa ku jira masalan aan laga diiwaan gelin hantidhowrka ma dhici karta heshiis magale oo laga diiwaan gelin hantidhowrka inuu waa khalad heshiis kastoo dawladda gasho weliba heshiisyada hadda socda kuwa batroolka oo kale waa in mid loo diiwaan gelin lama diiwaan gelin lacaga lasoo shubay oo maaliyadda iyo ay ku heshiiyeen iyo hay-adihii deeqbixiyaasha intii ay ahayd ka yara haddana miisaaniyad lagu muujiyo haddii lagu rahanay dawladdaas waxaa ku heshiina sanadka inay intaas heshiisay 2 bilyan inay heshiisay miisaaniyadda 1 milyan keliya ama riboortka maaliyadda ay ka muuqato su-aasha imaanaya waxay tahay milyanki kale xaguu ka baxay hantidhowrka wuxuu sameynaa budget comparison actual iyo waxaa jira qaarkoodna waxaa ugu yaabada sidii world bank oo kale lacagti oo aan ku heshiin inuu la siiyey lacag ka badan inaan sheegano oo aan laga soo gashay ayaa isiiyey marka world bank waxaan la saxeexana inuu la siiyey 41 milyan 225,875 wasaaradda maaliyadana waxay sheegaya 49 milyan iyo jazab lacagtaas yaa isiiyey marka haddii ka timaya su-aalo marka qaarna naaqusaa ku jira qaarna zaa-idaa ku jira zaa-id naftiisa waa dembi warbixintan waxaa ka muuqda yaxya dakhli badan oo meelo kala duwan ka soo galay waxaa ka muuqda dakhliga laga ururiyey gudaha dalka dakhli ay bixiyeen ama dhaqaale ay bixiyeen hay-adahan ama dawladahan saacida soomaaliya sida midowda yurub oo kale kaalmo uu bixiyey dawladda sacuudiga dhaqaalo badanaa ka muuqda marka dhaqaalahaas faraha badan leh ee warbixintan hadda lagu xusay iyo qaababka loo isticmaalay ay warbixintu sheegayso dhaawac intee leeg buu gaarsiin karaa dawladda ma laga yaabaa in hay-adihii ama dawladihii lacagta bixiyey inay iyaguna dib u eegaan dhaqaalihii ay bixiyeen iyo meelihii ay mareen waa khasab inay dib u eegaan marka hore waa joojinaya wixii socday kadibna waxay baarayaan lacagtooda meesha ay ku baxday sacuudiga 20 milyan la sheegaa budget kale waxaa ka muuqata 6 milyan iyo jidda keliya hay-adaha gudaha markaad fiirisid dawladda hawada iyo kale iyo CID-da oola ahayd hay-adda baaris lafteedu iyo hay-adda dawladda rayidka yaabka jira wuxuu yahay lacagay soo ururiyeen iyagaa dib u isticmaalay say ku dhici kartaa dukaankaaga ma aha meesha haddaad lacag soo ururisay waa inaad ku shubta akaamka dawladda codsi aad ugala baxda inaad la timaado lagu ogolaado budgetka ay ka muuqato madaxa budgetka aad kala baxayso iyo sababta aad ula baxayso lacada kadibna aad la baxdo laakiin waxay iisoo xarooda maanta isla berita anigaa isticmaalaya sistamka dawladeed ma aha marka laba cilad waa imaanaya in maamulka dawladdana dib loo soxo khalad u dhaca bini-aadanka oo dhan in loo soxo laakiin dawladihii deeqlana siinaayay sida EU-da ka muuqato Unbosta World Bank Turkiga dhammaan Maraykanka waxay naqanaya inay xisaabtamaan marka waxay arkaya riboortka hantidhowrka iyagana waxaa qabsanaya dadkoodii ay kasoo qaadeen cashuur bixiyaasha oo dhahay war lacagta aad naga qaadeen ee aad ugu deeqdeen waddankaas lama isticmaalin intaasaa ka maqan lacagteena kuma bixinayna marka in ay corruption ku dhamaato caddayna waxay reference ka dhiganaa si hantidhowrka wallahi arrintaan culays weyna keenaya wasaaradda gaashaandhiga markaad fiirisid waxyaabihii talyaaniga masar iyo turkiga ay keeneen iyo imaaraadka afrikaas wadan waxaa laleeyahay physically maba la arkinba qaarkood waxaa leeyahay wasaaradda gaashaandhiga awood muuma leh inay ku kantaroosho tusaale ahaan midowda yurub oo kale waxaa dawladda soomaaliya ugu deeqay sida warbixinta ku xusan 17 milyan iyo dheeri hase ahaatee 13 milyan iyo waxoogaabaa qasnadii dawladda ku dhacay sidoo kale dawladda sacuudiga oo kale sida warbixinta ku qoran 20 milyan oo dollar baa la leeyahay waxa ay siisay dawladda hase ahaatee 6 milyan iyo jajab baa ku dhacay qasnadii dawladda marka si dawladda Soomaaliyeed ay u cadayso halkay iska dhaafsiisan tahay xisaabtani ma looga fadhiyaa inay cadayso wixii dhacay dabcan waa inay cadeeyaan khalad waa dhici karaa dawladdu waa inay cadaysaa marka lacagta farqiga intaas leeyahay u dhexeeya from 17 to 13 xaguu ku maqan yahay ma riboortkii hantidhowrka loo soo gudbin ma lacag kale meel kale ku baxda lama oga sacuudiga waaba lacag aada u weyn ba 20 milyan ilaa 6 milyan difference weyn u dhexeeya dawladda ilaa laga suga marka inay saxdo ama dawladda ilaa cadisho marka ceebta halkaas oo kale ay gaarto ama wasaaradaha iyo shaksiyaadka ku shaqo lahay ay dembiga ku oogtaa oo lagu maxkamadeeya hantida haddii wax ka nool yihiin dib looga soo celiyaa ila dawladda oo dhan ma gelin dembiga wasaarado gaara ayaa la magacaabay wasaarado dhan hadda lama sheegin
kaasi waxa uu ahaa Professor Yaxye Sheekh Caamir oo dhaqaaliyan wax ka dhigay Jaamacadda Horn of Africa University waxaana isagoo jooga magaalada Garowe oo khadka telefoonka ugu warramay Caashe Ibrahim aadan dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaa in aan isku daynay inaanu warbixin ka meelo waaweyn xuseynaya ciidamada iyo waxa waaweyn lacagta badan waana lacag badan weeyaan cuntada waxa ku baxa ciidamada saadka iyo cuntadoodii iyo arrimahoodii iyo iidaankoodii iyo shidaalkoodii iyo lacag fara badan baa ku baxa ya waagar oo aan ka yarin 2 milyan bishii waagar ayaa ku baxa waagar marka waxa noocaas oo kala in iibka qaranka la soo mariyo ayaa loo baahan yahay marka wixii qaranka soo mariyo kala kuma dhici karto si kale haddaan iibka qaranka la soo mariyo waa sharci null and void weeyaan ana ku sheegay null and void yaa ku sameyn kara marka null and void maraysa wasaaraha madaxweynaha maadiga maya wana ku sameyn dib baan u eegnaa waa arkaynaa anigu inay jirto arrintaas u malaynayo laakiin hadday jirto waa warigu cusub waa dib baan u eegnaa waxaan rabaa waxyaalaan ka dadaalaynaaba taasa waa gar intaad golaha wasiirada joogto ma la soo hordhigay ma imaka ay horis maqalkaas ay tahay marka kala hadaan anu maqalla uma malayna dad kale oo fara badan inay maqlaan ama in iibka qaranka la geliyo ma ay lama gelin iibka qaranku waxaan u hoos yimaadaa wasaaradayda ay hoos yimaadaa nimanka iibka qaranka u sareeya waa wasiiro xagga sare ugu sareeya aniga iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka planning iyo kamida marka maanaan arag arintayda khubarada sida dhow u daristay heshiiskan waxay sheegayaan in shirkadani aysan bixinayn shidaalka iyo cuntada iyo qalabka u socda ciidanka Soomaaliya waxayse ka qaadaysaa bakhaarada ciidanka xoogga dalka iyada oo gaarsiinaysa saldhigyada iyo furimaha sida ay sheegeen khubaradaasi dadka kale ee dhaliilaya heshiiskan waxa ay leeyihiin ma cadda halka ay shirkadani ka helayso kharashaadkeeda waxayna ka cabsi qabaan in looga jaro deeqda loogu talagalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasi oo ay yidhaahdeen dhabarjab ayay ku noqon kartaa dhaqaalaha yar ee soo gaara ciidankaasi khubar kale oo dhinaca ciidanka waxay leeyihiin luqadda uu ku qoran yahay heshiiskani ma cadda waxayna keeni kartaa in shirkadani ay si dhib yar u hesho qandaraasyo kale iyo in ujeedooyin aan ahayn kuwa tasiilaad ay ku fushato waxayna si gaara farta ugu fiiqayaan qodobka odhanaya ujeedooyin ganacsi oo aanu tafaasiil ka bixinayn heshiiskani ma shirkaddan SK International oo ah shirkad gaar loo leeyahay ayaa ciidanka xoogga dalka u adeegsan doonta ilaalinta agabkeeda ganacsi mise ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa leh ujeedooyin ganacsi General Maxamed Nuur Galaal waxa uu ka mid ahaan jiray saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatanna waxa uu ka faaloodaa arrimaha militariga wax faa'iido ah leedahay male inay horay soo kordhida moogiye iyo buuro kale si aan loo baahnayn inay soo kordhiso moogiye iyo waxyaalo kale ku hoos qarsan oo maaragtay xataa waxa private ka business ka ay wadato in adigu iskor karaysan waxa soo dhan markii la isku soo xooriyay wax faa'iido ah leedahay male waa gartay madaxda aan la hadalay oo taliya ciidan ku jira waxay ku doodayaan arrintan inay tahay arrin ciidanku u baahan yihiin iyaga wax lacag oo uga baxaysana aysan jirin waxay leeyihiin shidaalkay noo qaadi waxay leeyihiin qalabkay noo qaadi waxay leeyihiin wax alla wax kasta oo u baahano waxaan ku jirnaa xilli ciidanka awoodiisa la dhisayo jidadka la furayo gobolada la gaarayo la rabo ciidanka iyo AMISOM iyo ciidamada kale taageeraya isku socdaan maxay kula tahay ma tahay shirkadani tii hawsha wada fulin lahayd tasiilaadka ciidankana gaarsiin lahayd meel walba hadda ma shirkadu huma wadato hubna ma keenayso wadooyinka waxay u xiran yihiin dad oo hubeysan ayay u xiran yihiin ma garanaysaa marka nin maran oo faralaalaada haddaan awood u leeyahay haddaba inta wax iskortaareeyaan wada furayo mana haddaba furto oo aado marka haddaan awooddaas aan hadda lahayn iyaduna ayan keenayn maxaa ku iskortaareeya seen ku iskortaareynaya waxaas waa iska ruwaayad waagar muxuu ku habboonaan lahaa heshiiskan inuu noqdo adiga fikradaada muxuu ku qomanaan lahaa in qaabkee loo dhigo maya hadday shirkadu tahay shirkad bakaarka wax soo gelinaysa ama Maraykan ha ka keento ama Carab ha ka keento ama meel kale ha ka keento ayadoo bakaarka soo gelinaysa hadday ahaan lahayd okay hadday ahaan lahayd shirkad hubeysan oo wadooyinka furanaysa sida Black Hawk waxaan leeyahay Black Water iyo wax la dhahay ma aqaane oo hubeysan oo qasab ku geynaysa wadada furanaysa waxa taasna macne on boysa ayay samayn lahayd laakiin hadda tan maba fahamsan wax faa'iido ay leedahay ma muuqato
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod waxa uu ii sheegay inuu isagu ku kalsoon yahay in shirkadani aysan ka leexan doonin ujeedooyinka heshiiska. Ma laga yaabaa inay dana kale oo ganacsi oo ay shirkadu leedahay inay ku fushato ciidanka iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed? waad ogtahay SKA hawlo kala duwanna wadanka way ka soo qaban jirtay, kuwa kalena way ka haysaasaan maqlay. marka arrimaheeda kale ee private ee ganacsiga ila waa shirkad gaar loo leeyahay inay ku fushato iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed. ma laga yaabaa taas oo suurtagal ma mar haddii ciidankii ay fulinayaan? lagama yaabo suuragal ma maraakiisha wax fulinaysaa nagaale, ciidanka wax fulinayaa nagaale, muxuu ahaa goobaha laga qaadayo raashinka meesha meel xeray ciidan baa ay ku dejinayaan raashinka, ma ahana baqaaro ku dejinayaan. marka ciidankii waa ganacsi ciidanka dhaqaaqsanaya ma ganacsi bowgeynayaan, ninka hogaaminaya iyo ninka wada iyo qoriga iyo baabuurka iyo wiilka iyo sarkaalka inta waa ciidanka xoogga Soomaaliya. madaxda dawladdu ma wada saxeexday heshiiskan? adiga wasiirka gaashaandhigga, ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha? madaxda shirkadda SKA International oo aan la xiriiray waxa ay diideen inay waraysi ka bixiyaan heshiiskan. madaxa shirkadaasi ee Muqdisho Stephen James oo aan khadka telefoonka kula hadlay waxa uu ii sheegay inaanu idan u haysanin inuu waraysi bixiyo. At the end of the day, sir, I've got no authority to speak to you and I have to cut this conversation short. isku soo wada duub oo wax ogolaanshaa uma haysto inaan kula hadlo. sheekadan intaas baan ku joojinaynaa. kulama sii hadli karo. waadna mahadsan tahay. I will not talk to you now, sir. Thank you very much. waxaan sidoo kale la hadlay xafiiska weyn ee shirkadda SKA International ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxayna iyagu dib iigu soo xawileen xafiiskooda Muqdisho. toddobaadyadii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu badnaa wasaaradda gaashaandhigga, halkaasi oo uu ka waday dib u habayn ku saabsan hoggaanka ciidanka. waxaa isweydiin u baahan madaxweynuhu ma og yahay heshiiskan? haddii uu og yahayse ma ansixiyey? waxaa kaloo isweydiin u baahan maxaa heshiiskan looga qariyay xafiiska iibka iyo qandaraasyada? marka adeegtid baaxadda saadka ee shirkaddan ay mas'uulka ka noqonayso, wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ma haysataa ciidan ku filan oo galbin kara hawshan? sidoo kale yaa bixinaya xuquuqda askariga Soomaaliga ah haddii uu ku dhinto fulinta hawsha shirkaddan? waxaa kaloo isweydiin u baahan waa maxay sababta ay ciidamada Soomaalidu u galbinayaan saadka ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ajaanibta ah? ugu dambaynna arrintani lugma ku leedahay dawladda Imaaraadka Carabtu? dhammaan jawaabaha su'aalahan waxaa laga sugayaa madaxda dawladda Soomaaliya. A lot of people have been arrested, officials and private people, for the past 2-3 years in connection with corruption. But more importantly today, 98% of every penny, if not more, that comes to our government, it comes to a central bank account and it goes to another bank account through due diligence process that is highly accountable. The only problem is that Transparency International haven't been coming to Somalia. After 8 years, they only came last year. And when they saw what we've achieved in a short period of time, they were surprised. The old narrative is what the world still sings about when it comes to Somalia. What we talk about is a new Somalia, not the Somalia of today, but the Somalia of tomorrow. And that is why a lot of people have very little information about Somalia, and the information they have is based on the past. The one we are providing is the current and the one in the future.